وحويان عد الله أقبله يدو عد وضدي مرة يصلح ذو الخير لكن قول الله الشرع والله شرابي والله شاهي جمهور قلادو كلا هذا قول صديقنا قرب القضي لحد بيل بفرستان لبدا دينا بعد بودرتها dhinac baad noqotay dhinac baad la shirtay garow waad kula shirtay laascaanood baad kula shirtay mar hadday sidaa tahay ugaas waxaan ku leeyahay iska waxaan halkan fariin u marinayaa ugaas maxamuud cali ugaas oo ku sugan maanta laascaanood waxaan leeyahay ugaas markii aad xamar ka soo ambabaxaysay waxaad u eegayd nin socdo ergo iyo dhexdhexaadin laakiin waad ka baaqsatay ugaas waad ka baaqsatay dhinac baad noqotay dhinac baad la shirtay garow waad kula shirtay laascaanood baad kula shirtay mar hadday sidaa tahay ugaas waxaan ku leeyahay iska noqo gurigaagii ku noqo waad ka baaqsatay inaad dhex noqotee gurigaagii iskaga noqon lahay ugaaska beelaha hawiye waxgaradkooda ugaas isamadooda nin garboodkoodana waxaan leeyahay walaalayaal dad wada dhashay baynu nahay dad isku isra baynu nahay dad saaxiibtinimo dheeri ka dhexaysaynu nahay waanu ogolahay tulimadiinna iyo dhexdhexaadnimadiinnaba laakiin ninkaasi sida uu soconaya maaha dhexnimo ergaanu idiin nahay erga hawiyaan idiin nahay ninkaa naga qabta ergaan idiin nahay erga hawiyaan idiin nahay waxgaradka hawiyaan la hadlaynaa meelay joogaanba ugaas maxamuud wuu ka baydhay dhexdhexaadnimadii ergaanu ka nahay ee naga qabta waxaanu ogolahay isamada kale ee hawiye waxaanu ogolahay inaanu dad walaalaa oo erira nahay waxaanu ogolahay in saaxiibtinimo ay naga dhexayso waxaanu ogolahay inaan wax xumaana oo colaada oo maanta aanu isdaba qaadna waan xigaalnimo haynaan inoo olin markay sidaa tahay waxaanu leenahay ninkaasi dhexnimadii uu ka baaqsaday isaga iyo waftiga wato waxaanu leenahay waad mahadsantihiin hawshiinina waa caddaysateen muumin laba jeer god lagama wada qaniine waan idin aragnay iska noqda intaasaan iyagana leeyahay haweyne sidaasaan leeyahay waxgaradkiisa waxaan kaloo ka hadlayaa gawaadhida khudradda sidee ee buuhoodle lagu afduubay waxaan leeyahay gawaadhidaas faraha laga qaado cid dambena tacadiga ayaan loo geysan waxaan leeyahay nimankaa buuhoodla jooga dowladnimadaynu ku kala nool nahay ee caqligeenna kuma kala joogno dowladda soomaaliya ka jirta iyo ta somalilan ka jirta baynu ku kala joognaa haddaad diidaan in aynu dowladaha ku kala joogno reeraa la noqonayaa nin waliba siduu doonu yeelayaa ciddii loo baahanayaana iminka yaan dhibaato loo geysan reer buuhoodle waxaan leeyahay halkaa waxu doonanaysaan marka la colowdaan hawiye la colowdaan ee dir la colowdaan ee isaaq la colowdaan halkaad ku noolaanaysaan idinkaa isweydiinaya haddii isqabadka khilaafka xukuumadda iyo jabhadaha laascaanood aynu u bedelo reero cidda cawaaqibkeeda ku xumaanaya waa la garanaya kama adkaysanayno in haweenka iyaga iyo ganacsigooda inta la afdubo layahay sidaanu doonano ka yeelaynaa intaana hawiya ka jawaabin baanu ka jawaabaynaa intaana hawiya ka jawaabin baanu ka jawaabaynaa waan arkay dumarkii ganacsatada ahaa ee sharafta lahaa ee muqdisho ka hadlayey ee ganacsigooda u hadlayey ganacsigu waa xor shanta dowladood ee soomaalidu degto shantaba ganacsigu waa xor waxaan leeyahay waxaas dib iyo dhicin dadweynaha reer sool waxa weeyaan dad u dhashay somalilan soollo waa somalilan khilaafkuna wuu yimaadaa waxaan leeyahay garaadada war intaad kolba cid kale u yeedhanaysaan waxa ka dhow inaynu inagu wada hadallo waxa ka dhow inaynu inagu wada hadallo innagaa isdabeecad garanayna ishadal garanayna garaad jaamac waa kii lahaa hadalkiisi oon maqlayo garaadada muusa dhabarka soo taabtay garaad markuu hadalku inoo furmo haddii aad u arki weydo dantaada ka dhex arki weydo iyo in laguu tanaasulayo markaasay ahayd inaad durto iminkana waxaan ku leeyahay garaad gogosha ku soo laabo wada hadalku innaga haynoo furmo in badan baa laguu tanaasulayaa waxaanu ku leenahay dad horti haynicin baa layidhi bal aynu wada hadalno inagu teenaa ka dhow cid kastaad u yeedho inta isimada somalilan
musabixii waxba ka suuro gelin kari waayaanna qaar meel ka yimidda ka suuro gelin maayaan qodobkaa ah ninkaa ugaas maxamuud cali ugaas waftigaa uu wato ee hogaaminayo dee annagu maanu durine iyagaa isduray waxaa la hadalku waa saddex mar waa malab marna waa murti marna waa mana mar waa malaboo markuu xadiis yahay waa malab markuu taariikh dhaba yahay iyo wadadeedii maraysa murti wadadeedii maraysana waa murti marka aanu labadaa midna ahayn dee waa mana dee marka dad uu doonaya uu leeyahy waa dhexdhexaadinaya uu qayb la shiray dee isagaa isduraa cid ma durin isagii waftiga uu hogaaminayo waxaanu leenahay sidaa uu sheegay suldaanku waanu beelaha hawiye ee walaalahayaa ee aanu isku reernahay ee isku islaamnahay ee isku tolnahay waxaanu leenahay waftigaa uu hogaaminayo ugaaskaa iyo waftigaa uu hogaaminayo waaru yeedho meesha uga yeedho ugu yeedh waxaa tagaan war iska soo noqda arrinkaa kumaydaan guulaysane taas waa taa waftiga hawiye iyo dhexdhexaadinta hawiye beelaha hawiyena dhammaantood waxgaradkooda iyo dhammaantood waa ogollahay oo lama diidi karo waa dad dhexa laakiin waxa weeyaan cidda la aqbalaya dee waa ciddii waddadii maraysa dhexdu lahayd laakiin nin qolo la shiray oo la sharaabay oo la shaahayey dee muxuu qoladii kale kula hadlaa qolaa soodigan garab noqday dhexdu meel bay fadhiisataa labada dhinacba cid bay u dirataa ciddii ay saysa waa la yaqaan iminka la baran maayo waxaanu halkan ka jeedinaynaa baaq aan u jeedinayno ugaaska maxamed cali ugaas ee ka soo ambabaxay muqdisho maxamed cali ugaas waxa weeye dee maanta shalay wuxuu ahaa maanta maaha shalay dee nin dadka u dhexaba yaa loo arkayey shalay yaa loo arkayo markuu muqdisho joogay waxaa loo arkayey ugaas soomaaliyeed baa loo arkayey laakiin intuu garowe iyo laascaanood dee soo galay wuxuu ugaasku ku suntamay inuu yahay garab soo diray farmaajona waa ninka dabka ka wada laascaanood dadka beelaha kiciyey waa nin caadaystay iska horkeenka dadka iyo hagardaamada soomaaliyeed waxaynu ogeen intuu xukunka haystay intaasoo qof baa lagu dilay muqdisho oo loo aanaynayey weli alaankana isagoo maanta kursigii ka degayna waa ta hagardaamadiisii daain dhinacna inoo dhaafi laadahay waxaan leeyahay taasaad ku suntantay ugaas marka waxaanu halkan kugu soo jeedinaynaa inaad iska noqoto adigoo mahadsan hawiye waa mahadsan yahay dad walaalaa baanu nahay dad wax ka dhexeeyaan baanu nahay dad ehelnimo ka dhexaysaa baanu nahay dad isku dira baanu nahay waan soo dhoweyneynaa hawiye iyo waxgaradkiisa iyo aqoon-yahankiisa iyo siyaasigiisa iyo ganacsatadiisa iyo maqaam kasta uu leeyahba waan soo dhoweyneynaa waxaan leenahay dad walaalaa baynu nahay isdhowrasho le dhexnimadiinana waa soo dhoweyneynaa